culimada Soomaaliyeed ee xeryaha Dadaab ayaa muslimiinta ugu baaqay inay soo afuriyaan saa'imiintaan heli karin afur iyo suxuur ku filan. waa qaxooti labaad ama waa qaxooti saddexaad waa dadkii soo qaxay 2011 haddana mar labaad baa la soo qaxiyo meelahay deganaan laga soo qaxiyay. guryana ma haystaan, suxuur ma haystaan, afur ma haystaan. aad bay dhibaato uga muuqataa. iyaga warsigooda ayaad ka garanaysaan oo ka arkaysaan. waxa weeyaan waxaan leeyahay dadka muslimiinta ee meel walba jooga Ilaahay wax siiyay. dadka muslimiinta walaalihiina rafaatan u naxariista. bishaan ku jirna waa bil Ramadaan. waa shahru sadaqa. waa bishii maxaan ku dhahay naxariista iyo muslimiinta inay isu naxariistaan. dadkan meeshan jooga waa dad aad u baahan. waxay ku jiraan bishii Ramadaan. dadkan waxay ku afuraan ma haystaan. waxay ku suxuurtaanna ma haystaan. waad u jeedaa hooyna xataa ma haystaan meel fiican ay galaan oo qorraxdan iyo dabeelahan ay ka galaan. waa dad runtii baahi aad u badan iyo dhibaato badan ka muuqato. waxaa la odhan karaa dadkani 2011kii dhibaatadii jirtay maanta ayay ka daran tahay. dhibaato badan baa dadkan haya. waa dad u baahan in loo soo gargaaro. waxaan ka codsanaynaa muslimiinta muxsiniinta meel ay joogaanba inay u soo gargaaraan dadkan walaalahooda ee muslimiinta ah ee baahidu ay la degtay in afurka haysanin oo suxuur haysanin oo waxay ciyaalkooda iyo ayaga midna waxay cunaan ma haystaan. xeryaha qaxootiga Dadaab ayaa waxa ku sugan dad badan oo aan heli karin iftaarka. muslimiinta kale ayayna ka codsadeen inay soo caawiyaan. waxaan ku afurno ma laha waxaan ku suxuuranana ma haysano. waan rafaasanahay. rafaad ilaahay baa naga bixin kara laakiin se rafaad inta baa nagu filan. waxaan haysanaa qamadi ayaan ku afurnaa, qamadi ayaan ku suxuurnaa. kuwa annaga naga waaweyn oo wax haysto inayna soo caawiyaan. caawinaad degdeg ay nala soo gaaraan. soonka dhexdiis ayaa waxa nool ku dhimanayaan. hadda dad baa aad kor u kicila oo gaajo rafaad ay haysa oo xalay aan suxuurinin. aniga hadda saas oo kalaan ahay, saas umul baan ahay haddana oo maxaa la dhihi jiray muslimiinta walaalaha ah inay na soo gaaraan si degdeg ay noola soo gaaraan. waxay ayaga nagu dhaamaan ka soo qaadka Ilaahay ayaa iska leh. waxaan rabnaa inay na soo caawiyaan. waxay hadda islaani sheegaysay inay umul tahay ayna taagnaan laadahay xalayna waxba cunin. bal waxaad qiimaysaa nin walowba islaan umul ah oo 3 maalmood 4 maalmood umulan oo waxay cuntaan haysanin. ducaadda Soomaaliyeed ayaa dhankooda wada dadaal wax loogu qabanayo masaakiinta gaar ahaan dhanka afurka. annaga haddaan nahay guddida afurka muslimiinta u qaabilsan waan dadaalaynaa. dadaal badan baan ugu jirnaa in aan u helo dadkan muslimiinta waxay ku afuraan kuna suxuurtaan habeen iyo maalinba. dadaal badan baan ugu jirnaa laakiin waxaan ka codsanaynaa muslimiintu inay garab istaagaan muslimiinta loo soo gargaaro. dhammaan muxsiniinta ayay ka codsadeen inay ka soo farxiyaan walaalahooda aan waxba haysan. waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ka codsanaynaa Soomaalida laga bilaabo Dadaab, Garissa, Nairobi, Bambaaso, meel kasta ay joogaan dal iyo dibad walaalahoodan muslimiinta ah ee bisha barakaysan jooga ee waxay ku afuraan iyo waxay ku suxuurtaan midna haysanin in ay gargaar la soo gaaraan ayaguna ay yimaadaan oo arkaan meesha. sanad kasta xilligan oo kale waxaa jira gurmad loo fidiyo dadka tabaalaysan balse sanadkan dadaalka ma muuqdo. waxayna arrintan ku soo aadaysaa xilli raashinka qaxootiga la siin jiray hoos loo dhigay uuna jira barakac iyo nolol xumo haysata qaxootiga ka guuray xerada Ifo 2. Maxamed Baaruud Xuseen, warbaahinta Star, Dadaab.